أقم الصلاة. استقيموا واعتدلوا تراصوا سدوا الخلل. استووا سدوا هذا ولا غيال صفوف كان لما يسترات توسية. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة
فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الله. والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله على حسن إن شاء الله. سؤالي أيها السلطة والداعية إن شاء الله مركا وقت غير أنا هيسنا شيخ أنا كايسنا إن شاء الله كيف يسنا دين غيره مركا هل استويستو الله أمسو الله فريستو. سؤاشني waxay leedahay sheekhna alfaadil sheekh su'aasheedu waxay ku saabsiisan tahay gabar ayaa wiil aan u meheriyey waqti hore iyadoon joogin weligeedu haddana reerkii waxay leeyihiin ciyaal markaa dembi miyuu iga socdaa? الحمد لله. walaalku wuxuu leeyahay nin baan ku meheriyey gabar
iyadoon weligeedii joogin weligeedii aanu ogeyn haddana carruur bay isu leeyihiin dembi miyuu iga socdaa jawaabtu waxaa weeye gabadha lama meherin karo haddii aan weligeedu ogolaan ama ogeyn macnaa weligeedu hadde waa aabbaheed deenu jirin waa walaalkeed deenu jirin waa wiilkeeda deenu jirin waa wiilashooda dii kale waa adeerada ilma adeerta saasay u soconaysaa marka gabadha weli la-aan lama meherin karo sidaas baa xadiisku sheegaya inkastoo madaahibta qaarkeed ay qabaan sida madhabka xanafiga ah oo kale haddana xadiisku wuxuu leeyahay haweeney lama nikaaxin karo ilaa biweli laa nikaax ilaa biweli wuxuu leeyahay xadiiska kaleeto ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fa nikaaxuhaa baatil gabadhii la meheriyo iyadoon weligeedu ogeyn waxaa weeye baatil waxba kama jiraan buu noqonayaa nikaaxeedu waxaana ogaanaysaan nikaaxa waa sharci ilaahay inoo sharciyeeyey oo nicmo ah inu ku xalaalaysanno haweenka gabadha iyo ninkii xalaal isugu noqonaya waxaana la rabaa labada dhinacba weligii gabadha ehelkeedii soo koriyey mas-uuliyaddeeda qaaday hadda kadib xataa qaadi doona haddii wax ku dhacaan dhibaato ay timaado ehelkeedii bay kula soo noqonaysaa iyagii baa dhibaatadeedii dhabarka u ridanaya marka in la yidhaahdo gabadhay soo koriyeen oo iyagu ku soo rafaadeen oo ku soo dhibtoodeen oo haddii haddana dhibaato berri ku dhacdo ama ninka ay isdiraan ama ay kaataan iyaga ay ku soo noqonayso in la yidhaahdo waxba laga weydiin maaye nin baa intuu laamiga ka yimaado iska kaxaysanaya wax saxa cadaaladana maaha sidaas oo kale gabadhana waa laga talagelinayaa oo ogolaan la-aanteed iyadoon ogolaansho bixin weligu iskama nikaaxin karo marka labadoodu waa isku xiran waa inay iska ogolaadaan arrinta gabadhuna ehelkeeda u sheegto weliguna gabadha haddii laga soo doono u sheego inay ogoshahay in kale iyagoo labadoodu isku waafaqsan markaa nikaaxi uu dhaco sidaasaa la rabaa hadda haddii marka nikaaxi aad samaysay waxaa weeye in laga ansixiyo weligii in laga ansixiyo ama nikaax cusub la sameeyo ama weligii uu ogolaado haddii intaasu dhacdo insha allahu tacaala adiguna dembi kuma yeelanaysid iyagana guurkoodii uu hagaagayaa nikaaxoodii wallahu aclam السلام عليكم. سؤال بي كحرن كمالين. الحمد لله شاكرا لله. حتى مثلا قربان دفتو حاجة dadki Djibouti kala joogaan amba Soomaaliya joogaan waxa kala joogaan marka ma laga guursan karaa internetka dhexdiisa sheekh xagga soo joogsada oo ku meeri kara gabadhii dadku isku dhawo bilmo marka guurkaas ma socon internetka ma socon الحمد لله walaalka su-aashiisu waxa weeye nikaaxaas haddii internetka laga sameeyo oo masalan weligii baa meel jooga ninkii gabadha guursanaya meel kaluu joogaa bruxelles buu joogaa gabadhii ama weligeedii jabuuti buu joogaa sidee masalan ama soomaaliya sidee bay noqonaysaa waa lagu samayn karaa xiriirka wax dhibo male haddii la hubiyo dadka meesha jooga iyo markhaatiga iyo sheekha samaynaya iyo kulliba ay og yihiin qofkaas hadlaya inuu yahay weligii gabadha aanu qof kale ahayn ama ninkii gabadha guursanayay inuu yahay hadduu isaga lala soo xiriirayo haddii la hubiyo ama telefoon ama internet ama keyrkeedba way ku ansaxaysaa insha allahu tacaala wixii ay joogitaanka ku ansaxaa baa xiriirkana ku ansaxaya laakiin waa in la hubiyo inuu qofkii yahay waanu qof kale noqon allahu aclam جزاكم الله خير واحسن الله اليكم شيخنا سؤال شكل كل سؤال ولا سوق الدنكا قفكي الصومالي هل الصومالي كسوقوري كريم فرنسيس هم بهولنديس لبدو كسوقوري كريم إن شاء الله السلام عليكم بولي هاي سايب كان الشيخ دكان ماذا قار أما مالها شاها لعقت كاشكا هي بنكيغا ويكلا دوينين لعقت كاشهان وكاربو ambata bangiga markaad marinaysid way kala duwan yihiin oo bangiga ayaa wax yar siyaada ah marka lacagta lagu saaro riba miyay tahay alxamdulilah lacagta waxaan filayaa kaarka
ama credit kaarka ama muxuu ahaay debit kaarka baalka kaarka la wato in la mariyo oo aad qaxwo ku iibsato ama alaab kale ku iibsato supermarketka laba qaybood waaye kaararku laba nooc waaye inta ugu badan ama waa debit card waxa la yidhaahdo oo ma aqaan aniga afkiina dee faransiiska wax lagu oranayo laakiin waa kaar ku xiran fiisa kaar ku xiran account-kaaga ku xiran dee account-ka lacag kugu jirto waxaad iibsanaysaa haddaan wax kugu jirin waxba ma iibsan karaysa everywhere rejecta lagugu sameynaa ma laga aqbalayo kaas la iskuma haysto waa la ogolyahay waa la qaadan karaa waxna waa lagu iibsan karaa waxaad iibsanaysaana waa lacagtaadii qofkan idiin dhexeeya ama bangiga ama taajirkana samaynayaana wuxuu qaadanayaa khidmad buu qaadanayaa fii buu qaadanayaa laba euro 1 euro waxaasu qaadanayaa taas waa la ogol yahay nooca kale kaarku waa credit card waa kaar dayn ah ma aha lacag inay akoonka ugu jirto laakiin visa card ama master card ama diners club ama qeyrkiis ayaa wuxuu odhanayaa anaa ka wakiila marka hala siiyo qofka deynta gawaad iibsanaysaa limit baad leedahay 200 euro aad iibsatay ma haysatid adiga 200 euro account kuma jirto laakiin visa kaarkaasaa lagugu siiya damiinka ah oo ku deymiyey adiga deynta uu ku deymiyeyna bil buu ku siinayaa isagoo ku leeyahay ku bixi markaa bil ku bixi haddaad ku bixin weydana lacag ku saarnaya markaas waa ribo lacag ku saarnaya waa ribo لأنه الدين العقل قاطع يا العقل كده يميل العقل مصارنا يا شرط قاس غلط نعم واتكلم بتجلسها هدي تكون بحسهم مدرس بكلية مثلا صد المعلومات ده تكون بحسهم يا العقل مصارنا أما عشان يدون مال الله تنمال عشان يصد المعلومات هذا شركة واحد كلية هدي لكن أتكلم هذا boqolkiiba waxaan ku saarnaa 15 boqolkiiba 20 boqolkiiba kada waan ku saarnaa kulliye oo ugu soconaysa taas waa xibay yiraahdeen culimadu wax daruuro keento oo qofka dee sida meeytada qofka u baahan oo kale ma ahina looma qaadan karo ay yiraahdeen waxa saddexaad oo jira hadda waxa jira yani credit card oo isaguna sida debit cardka oo kale ah bangiyada qaarkood bixiyaan waa jira oo lacagta in advance baad ku shubanaysaa in advance kaarkaa lacag ugu jiraysaa lacag mucayana qiimo mucayana ku jira 1 euro 2 euro baa kugu jirta oo horay adiga bangigu account-kaaga uga gooyay oo kaarka kugu shubay kaarkaas marka 200 euro ku jirta haddii 200 euro inta aad isticmaalayso credit card ahaan baad isticmaalaysaa debit card kuma jiro shirkadaha kula isticmaalaya ama gaari kiraysanayso ama hotel kiraysanayso ama oo aan aqbalin kaarkan kale fiisada kale ee debitka ah kanay aqbalaan laakiin lacagtaadii way isagana waxa isticmaalayso intaas nooc way jiraan laakiin lacag dulsaar ah way noqonaysaa wallahi جزاكم الله خير واحسن الله اليكم سؤال كحفته waxay leedahay sheekh ahsan allah ilaykum waxaan caawiyaa dad aan muslim ahayn may bannaan tahay in la caawin karo qof aan muslim ahayn amba cunto loo karin karo su-aal faransiis lagu soo qoray waxay sheegaysaa sheekh waxaa tiri lama ogola in la xumeeyo amba la khiyaamo qof muslim ah qof aan muslim ahayn iyada ma la khiyaami karaa alxamdulilah laba su-aal isku xiran waaye su-aasha kuwaad macaawin karaa qof aan muslim ahayn caawin karta ma karin karaa u karin kartaa haddii taa xalaala waxaa u karinaysa haddaad doofaar u karinayso ma banaana diintaada kuma ogola ama khamri a u shubayso laakiin haddaad wax xalaala u karinayso waa caawin karta waana u shaqayn karta xadhiba ma laha middan ah qofka muslimkaa waa tidhaha khiyaamin qofka kaleeto aan muslimka ahayn ma la khiyaami karaa maya jawaabtu maya waa qalad baa u fahamtay muslimkaan ka hadlaynay oo nabiga calay sala xadiiskiisi baan sharxaynay laakiin qof aan muslim ahayn xataa ma khiyaami karto qofka muslimka ah sidiisaba khiyaanadoo dhan baan loo oqolay man gasha falaysa mina ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin aayadda markuu ilaahay leeyahy ilaahay khaa'inka ma jecla khaa'inka muslimka miyuu yiri mise khaa'in gaal buu yiri ama qof aan muslim ahayn buu yiri maya
لا يحب الخائنين خائن أو دم مجعل إلهي سبحانه وتعالى وجد مركا ما خيانة كفتو بل النبي عليه الصريحة ويري يا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك حتى كيكو خيانة هذا ما خيانة حاجة أنا كسر عشان تعرف عنده حقوق خيانة يصير كسر عشان ليه لكن ما خيانة يصير الله أعلم. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. قبلها waxaan xasuusinaynaa qoonuunka hadda la buuxiyey guriga looma qaadanayo insha Allah waa la soo gudbinayaa walaaladuna iyaga idinla soo xiriiri doona marka xataa qarashka lacagta sadaqada haddaad gadaal ka bixinaysay foomka waad soo gudbinaa hadda waad soo gudbin doontaa. su-aashan sheekhna waa hooyo ayay ka timid waxay tiri assalaamu calaykum sheekh waxaan ahay hooyo 4 cunug qabta odayga salaada ma oogo bilasaf mana rabo in aan dowladda u sheegno guurkeenna oo waan kala nool nahay diintu maxay ka qabtaa maxaad isaga iyo aniga nagu waanid lahayd. alxamdulilah waanadu waxa weeye inaad dad muslimiin ah oo salaada ooga aada labadiinuba noqotaan qofka muslimkaa looga baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fain taabuu وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين معنى إن الصلاة دي أوغان زكاة بحيان مركزيين ولاليهن في الإسلام نبينا عليه الصلاة والسلام حلية بين الكفر والشرك بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر حلية هاي نبي عليه الصلاة والسلام قفك إيو قال لماذا وحاول حيث صلاة ديو صلاة دي كتغو وقالوا لي مركا عمل لغو شيغي قال لما إنو يهي oo كتغيتاك صلاة ما هو سهلا إن كستو علماء قاركود هاي قبان قال لماذا هل كان حديثك لغو شيغي إنانا أين قال لماذا وين الدنبي وين أي تاعي معناها دنبي وين واي قال لماذا دينت اللغة بحاي أنا أهاي علماء قاركود ساسي قبان لكن تاس حتى لفت هذا الوقالو علماء صوحي قبان إنه الدنبي وين يهي وقفكاس ومدية هي حكم الإسلام هدول جرو إلا حبسه صدح مع الموت كلية لسيو وقت لسيو أما وإنه تكذا أما إن مركا دولة الإسلام كاي أي مركا حد كو أوفيس وقلاده أوفضت كان ساسي ليه كفر ميسا فهو كحر ميسا إن قال هو إنكم محرم مسلمات دينو تكتو مسلمات sidoo kale waxaa ka laazimaya dhammaan wixii ka laazimayay qofka haddii uu diinta ka baxo oo faman tarakaha faqad kafar maadaama uu yiri bay yidhaahdeen nebigu calayhi salaam uu gaaloobay macnaha waxa weeye haweentiisu waa furan tahay lama dhaxlayo wax ma dhaxlayo lama dhaqayo hadduu dhinto lama kafnayo laguma tukanayo qubuurta muslimiinta laguma aasayo axkaamtaasoo dhan buu qaadanaya هذا عين صلاته وعماد الدين والدين تا لفظبر تادي وكثير كوجو الإسلام لقمنا تذكره ودينتي واد دنتي دينتي سقف كواد دنتي هدين وصلاة كثير وأنا وحنا لنا هاي إلهي سبحانه وتعالى أبري أولا أنا هو أبرينا إن إلهي سوهنوني نكاجا صلاة كسوهنوني إن تكون صبرتو وقدر قادته أنت تبارك مدام عيالنا الشوغات آبنا وباهيين إنكستوا ويهي آباء عاصي وفعلين هذانا بلينات يعني دعواهن أني ستؤجر بعد كل هذا هاي إن هدين لكن لقى علوة مركز وإنات كلا فتحي ستان الله جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ودي صنعوا إن شاء الله سؤال بارك الله فيك سؤال أو معناه قوي شيخ هدي أن ميلا كبحو قولي أي شيء وراكو أن أبهين الصلاة عصر إن أنا قارين ماشي أن تجي ما قدر كرا صلاة الظهر. الحمد لله هدي مرمركو قول عظم إن هذا صلاة دي وقت جدي كنت كرين وعصر كي مثلا ماشى أسعتي أما أد جاري راعيسي أما أد عبسني الصو هدي أد ميرك اللي كنت كتب أما وحكلا أي من عام با ضمن هدي تماضو هذا الصلاة دي عصر كنت كرين دور بوا قدر كرتا مركا هذا عي
nebiga calayhi salaam uu ruqseeyey qofka muslimkaa inuu isku dari karo duhurka iyo casarka maqribka iyo cishaha haddii dan ay timaado dan hadday timaado xaaja oo xadiiska ibni cabaas radi allahu canhu baa u daliil ah oo uu yidhi nebigu calayhi salaam madiine iyadoo la joogo ayuu duhur iyo casarna tukaday maqrib iyo cisho tukaday iyadoon roobna jirin dabaylna jirin cabsina jirin wax jira ayay jirin muxuu la jeeday baa la yidhi wuxuu yidhi araada an laa yuxrija ummataha ummaddiisa inaanu diiq gelin oo dirqi gelin ayuu nebigu calayhi salaam caddaynayay marka haddii wax dirqi naftaadi gelinaya ay jirto waad isku dari kartaa laakiin in la caadaysto ma aha wallahu aclam alxamdulilah sideedaba sebareedka ama waxaa la yidhaahdo labada kala jirka haddii ay dowladdu dee waxay ugu tala gashay labada qof oo kala maqan oo isqaba laakiin welina aan furiina dhicin dhammaystiran kalana maqan oo kala degan haddii xaaladoodu iyaga saas ay noqoto oo de sharcigii ay waafaqsan tahay dhib male laakiin laba qof oo isqaba oo iyagu wada nool oo haddana separate sheeganaya taasoo ay tan la diidaya nacam جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم شيخنا سؤاشني waxay leedahay sheekhow ayuutada amba hagbadu ma banaanta alxamdulilah ayuutada ama hagbadda laysku dardarsado oo bilishay baa la qaato culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waa bannaan tahay haddii dee qof walbi uu oofinayo dad khiyaano ku jira ayay jira intuu lacagtii qaato haddana la cararo la furta oo intuu hormarsaday dee lacag buu hormarsaday haddii la yidhaahdo qaybta labaada lagu siinaa ama booska saddexaad 10 kun baa la siiyey dee 7 ku maqan 3 kun buu bixiyey isagu wax kale ma bixin 10 kun uu qaatay dumarka uu la fakado dee xoolo dad uu la fakaday iyo deyn marka haddii la is aaminayo wax dhiba ma laha insha allah taala سؤال تفضل السلام عليكم. الحمد لله ولا ليال حروا إن إذن شاف سؤال شادن كسعودي ولا نقول عليها مثلا قفبة كودة دور نمو شغل جلية شفت جلية إلا عاوة طبعا كمية أما سجالك أبو جرية مركا ظهر يا عصر يا مغرب يا عشاء أيام ماشى وسوق جرية تقريبا أما عصر يا ظهر أما عصر يا مغرب يا عشاء وسوق جرية يا كهرتا ولا ريال صلاة gorgortan ma leh salaadaada inaad tukato ma waxaa rabtaa in lagu yidhaahdo salaadaha tukan shaqadaa muhima suurtagal maaha risiqaagana ilaahay baa qaba risaaqadaada ilaahay baa qoray shaqadan keliyana kuma xirna meelo kaloo badan oo ka wanaagsan baa laga yaabaa ilaahay subxana wa tacaala inuu kuu furo laakiin ha ka tanaasulin cibaadadii rabbi oo ku irsaaqayay wixii dani marmarka qaarkood sidaan hadda ayaba sheegay kugu qabato marmar waxdhiba mala laakiin inaad adigu qarsato diintaadii salaadaadii cibaadadaadii waxa weeye wax khayri kuguma jiro meel aan salaad lagaaga ogolayn saas darteed marka horeba horta caddayso shaqada aad gelayso dhibaatadu waxay ka timaadaa qofku ma sheegayo qof muslimaho salaada ku waajibayaan wakhtiyaal mucayana oo go-an inuu yahay marka hore ma sheegayo wuxuu isleeyahay shaqada yaan lagaa cayrini tu ismiskiiniyo oo daciif iska dhigo wuxuu leeyahay haddii aad tiraahdo wakti hebel waa tukanaya ama jimcan aadaa shaqada amaa laguu diidaa marka iska qarso waxaad hadhow ciriiri gelaya kaasaa la odhanayaa maxaad u tiri
هذا القصة إيدين شيء meel baa waxa ka wada shaqeynaya dad Soomaaliya oo badan marka qaar horay ka shaqeynay oo nin horay meesha uga shaqeynay ma uu yahay sheegan inuu salaatu kanay oo qof muslima oo waqtiyaal muayyan ay ku waajibeen maqribka iyo waqtigiisu ciriir yahay 10 daqiiqo oo u baahan yahay inuu tukado 10 daqiiqana uu soo celin karo ama waqtiga gadaal kaga daro ama bareegiisa laga gooyo ama meel kaleeto shaqadii waan gudanayaa laakiin waqtigaas marka uu yimaado salaad baa jira aan tukado oo obligation ah oo layga rabo marka ninkii saas u shaqo galayso waxba sheegin shaqadiisu iska qabsan jiray shaqooyinka ma tukan jirin kolalka qaarkood dad kale yimid Soomaaliya meesha markay soo galayeen shaqada sheefkii madaxda u sheegeen shaqada markii la qoray inuu waqtigaas maalintaas inta kale waan shaqeyn karaa laakiin nus saac waqtigaas maalinta jumcada ah hadday soo gasho waqtigayga shiftigayga hadday soo gasho waan waxaan u baxaa ballan aan laga baaqan karin salaadan haddii waqtigaas soo gasho shaqada dhexdeeda waxaan tukan karaa 10 daqiiqo ama 5 daqiiqo xataa oo aan soo celiyo conditionkii waa laga aqbalay sidii baa lagu shaqaaleysay markii shaqadii waqtigeedii maqribku soo gaaray sida waqtiga winterka waqtiyadu way isbedelaan waqtiyaal waxaa jira aadan ba shaqada ku jirayn salaada laakiin waqtiyaal salaada aad ku jirayso ayaa ninkii la fasaxay kii kala damcay inuu isna markaan dhiiri gashay oo damcay inuu raaco marka ninkii supervisorka wuxuu ku yiri adiga isku mid baan u nahay joog meel aadi hawal maan tukan jirin ma hadda aadu muslim hadda miyaad soo islaantay hadda soo islaantay marka qof hadda soo islaamay inaad noqoto maaha waa inaad sheegataa qof muslim inaad tahay oo salaad laga rabo haddii lagugu ogolaadana waa khayr haddii lagugu diido khayr kuguma jiro wax khayr oo kugu jira ma jiro meel ka fiican baana ilaahay kugu irsaaqay kolalka qaarkood hadday kugu qabsatana duhur iyo casr waa la isku dari karaa saan idiin sheeg maqrib iyo cisha waa la isku dari karaa laakiin wax la caadaysto maaha kol hadday kugu qabato duruuftu waad yeeli laakiin sida caadiga ah waxa weeye inaad sheegato waqtigaaga salaada oo aad waqtigeeda ku tukanto meesha lagaaga diidana ka tag meel kale ka khayr badan baad helaysaa arrimahaasna dib weyn baa annaga Mareykanka iyo ka soo marnay waagii dambena waxay noqotay in xataa meelaha shirkadaha ah masaajid shirkadu ay ugu samayso shaqaalihi markay bataan masalan shirkadan Hertz baan dacwo isla fuulnay shirkadan Dell oo samaysa kombiyuutarada dacwan isla fuulnay maxkamadaha isla tagnay shirkado badan oo saasana maxaakimada isla tagnay aakhirka waxay noqotay arrin caan ah oo maaragtay iyagoo la ganaaxay malaayiin la ganaaxay kadib waxay noqotay arrin caan ah qofka muslimka salaadiisa lagu dhibin wax lagu dhibaa inaanay arrintaas jirin bal iyagu inay sameeyaan meel mawlica iyo meel ku waasastaan inay shirkadu u samayso satisfaction-ka inay satisfied shaqaalahooda noqdaan iyaday dani ugu jirtaa oo maslaxa ugu jirtaa Allahu a'lam جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم شيخنا سؤال سعيد كلمة كلية شيخو قبل أيام كوكاري حاس كيغا أو بنا لعكتاس مكو حجي كلا ما شاء immigration ka weydiinaysa haduu ku ogol yahay gabadhaada in xaaska ku gaarto waa sharci hadii kaleeto been wey uma ogola waxa ka dhacayna waa been السلام عليكم waxaan su'aashii maxamed uu weydiinaa ku soo noqdo waxaan ka fahmay oo ribada ahayd oo bangiga guri ma ii geli karaa waxaan fahmay haddii lacagta isbedbedel leedahay inay taasi ribo tahay laakiin bangiga waxaad la gaari kartaa gorgortum aad leedahay fixed price portfolio fixed waa lacag aad leedahay sida boqol oo kun guriga joogo interest soo kori doonta oo bil kasta aad la bixinaysa waxay noqon doontaa ilaa iyo 300 oo kun waa fixed kuma xirnid suu sicirku uu isku bedbedeli taas ma la ogol yahay sheekh alxamdulilah laba shay ayaan sheegnay beeca sidiisaba deynta ah laba shardi baa ugu muhiimsan siday culimadu sheegaan shardiga koowaad waxaa weeye shayga inuu qofka iibinaya taajirka iibinaya inuu shayga isagu milkiyey
oo uu haysto oo uu ku jiro xirsigiisa uu ku jiro macnaa ama stoorkiisa ku jiro ama uu milkiyey oo uu isagu leeyahay qodobka waa maxaa dhacay xadiis baa jira oranaya laa tabic maa laysa cindak waxaadan hayn ha iibin waa inaad milkidaa ya xadiis kale wuxuu leeyahay alaabta xataa haddaad iibsatay adigu oo aada rabto inaad sii iibiso iyadoon istoorkaaga soo gelin damaanadaada soo gelin ma iibin kartid waa inaad istoorkaaga gelisaa adigu horta oo soo tamallugtaa si aad mas-uuliyaddeeda u qaato marka kaas waa qodobkaasna bangiyadu ma oofiyaan oo waxa weeye bangigu adiga ayuu ku leeyahay guri soo arko keen shuruudihii iyo wixii markaasaan ku iibinaya aan ku gadaya ee bangiyo gurigu leeyahay oo u gadan ma jiraan bangiyo guryo uu isagu intuu iibsaday uu rabo inuu ka faa'iidana ma jiraan isagu lacag buu ka faa'iidaa bas lacag qof kale dhigtay buu ku siinaya ku deyminaya deyntaasna lacag buu ku saaranaya ribaduna halkaasi ka soo ma aha qof badaaca kala iibiya maaha islaamku wuxuu rabaa waxaa weeye qofkan faa'iide iyo khasaaro inuu kula qaado oo hadduu rabo shaygan isagu bilajalka ama muddada deynta inuu ka faa'iidaysto waa inuu shaygan soo gataa ama ha laga iibsado ama yaa laga iibsado kadibna uu ribx raadiyaa oo yidhaahdaa aniga shaygan 50 baan kusoo iibsaday kaash ahaan 80 baan kaa siinaya suuqa 50 buu ka joogaa haddaa kaash haysato laakiin anigu 100 baan kaa siinaya limaada laanno anigu waxaan ku leeyahay 5 sano ku bixi laakiin wuu haystaa wuxuu u iibsaday ogow way u fadhidaa bangiyadu saas ma sameeyaan horta shayga waa inuu milkiyaa telefoon ha noqdo shay ha noqdo guri ha noqdo wax kale ha noqdo xataa shirkadda telefoonku bangigu kuuma iibin karo telefoon ama telefoon laysa cindahu telefoon isagu ma milkin laakiin shirkadda telefoonka haysato iyado istoorada uu yaallaa waa kaa iibin karta qodobka labaadna waxa weeye qiimuhu saa sheegnay inuu marka horeba xadidan yahay waqtigiisa iyo amountigiisuba inuu xadidan yahay hadhowna haddii xataa aada la daahdo lacagta aada la daahdo bil aanu lacagti ayan isbedeli qodobkan oo qodobka labaad labadaas marka haddii laga helo waa okay insha allah جزاكم الله خير وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم. سؤاشن جواب بكتمين وحالة الشيخو ninkayga ciyaalka ma geeyo madraso waajibaadkiisiina hadduu ka soo bixi waayo inuu carruurta meelaha diinka geeyo aniga maxaa sameeyaa alxamdu lilah adiga maxaa samaysaa adiga waa dadaalaysaa inuu wax samayn waaye isaga waajibkiisii hadduu ka gaabiyey carruurtii waa inaad dugsiga geyso macaamada geyso iskuul geyso wixii tabartaada la dadaasho insha allahu tacaala isagana lagu wacdiyo adiga iyo qeyrkaaba ku wacdisaan inuu mas-uuliyaddiis ka soo baxo carruurta waalidiinta iyo qur-aanka iyo ku bartaan ka warhayo mas-uuliyad baa ka saaran yowma alqiyaamana ilahay kula xisaabtamay allahu جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه السؤال جبتوا على هذا التوسع وإن شاء الله ويدين إن شاء الله فرصة ولي لو مجرد بينه عليه. تفضل. الحمد لله walaalku wuxuu yiri markii la weysaysanayo sharaabaadka la dul marinayo gacanta lagu masaxayo maadaama dhulkaba aan joogno maxay ka qabtaa shareecadu nacam jawaabtu waxa weeye waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay u fududeeyey shareecada islaamka dadka muslimka ah haddii uu u xiran yahay kabo adag oo xiran guud ah ama sharaabaad iyo kaba kale uu gashan yahayba inuu masixi karo waysada wixii wayse ka jabay inuu masixi karo kabaha ama sharaabaadka
haddii uu marka hore daahir ku gashaday isagoo daahir ah iyaguna daahir yihiin waa inuu marka uu gashanayo daahir yahay iyaguna daahir yihiin labadaas kasoo hadhow marka 24 hours ama 24 saac uma baahna inuu iska bixiyo uu masaxaya kor markuu weysaysto ama weysadu ka jabto haddii uu safar yahayna 3 maalmood iyo 3 habeen baa loo ogoliyay maadaama uu safar maxaa dhacay safarta iyo bixinta iyo taagidda iyo kulli mashaqo iyo dhib baa ku jira dhibkaasna dhibku hadduu yimaado shareecadu fududayn bay keentaa almashaqatu tajlibu taysiir المشقة تجلب التيسير قاعدة شرعية وهدي اللي بيماله فضيت بايمال يا فضيتين بعد ما ده هدي اللي بيماله مركب ولا مسيح كراه والله الحمد لله قامك الله مسحيه وحوي هديك كبها المسحوسية هذه شرابات المسح السبع بيها يتوقف شبطه كسرته يا تساء مريض إنسان كنت كركان عقد كركان ما هوس ما دينا ما ميل كله وربط كر أمرين هالمرة سيدا قعمها بيك أقفلان تهاي قعمها إن جبل أنصار أمريس وجه كنا أمريس بس كل ماذا يوعز ينا أمريس قام بان ده جبل يسريس قعمها كركودهم بالمرين إنسان سكال سدنا ساسر أمرين إنسان كركان هذا بديه تنكركم مستحيل وحده مرة السلام عليكم. اللهم تعالى بخير. شو بقولي أكيد بقول بدينا دي بقول ما شاء الله. شو أنا ما بقول تقريبا أنا ما له شيء. وحن بقولي يا تطلب حالك تشوفها. مطروح حكي ما تسوى ما عليه لما تقول. نقول لا تبغى أنا بابا أنا عسول بكرة. أنا ما بتري شيء من هالجيسة أيوة خان شيء هاي وكلا أو كونفورت سوى ما عليه أحمد. سيدا شرعي وقطعتين. وأوش الإسلام مثلنا مع عيبة فقاتها وحتى الشخصين وقد استقلنا فما يتبرعون. الحمد لله. أرنتاس حرام وشاقي جماعة وحنو مالينا هنا عدي وحنو مالينا هنا عدي وحوي قفك مسلم كا بين لوما أوكل بين بنانا يا إياكم والكذب ولا النبي عليه الصلاة والسلام. مركبان تاس وحبلكم ما بنا رزق ورادنا الشقة رادنا يا جور ورادنا وحنا. مد الله بعد وحوي شرعي ضدكاس كقاعدة نساء شرعي إياكم شرعي وما أقوله. لا ده أسكوا وافق يعني الله أعلم. السلام عليكم. سؤال شو ما كيوران كوي أدور عليه. سيدي عم راح يسمعون فاهمين بعض مرة وانقلنا قرناي وقرنا يا بين مركز الشغل إن المرة بين أي هاي حرام هاي أي كل شيء لكن لا شيء يحوي لا وأنا خصوصا نقنية بين بعد شيء وحنا في عنا الله كضغط كان توبة النصوح حرام مرتو أدي لا يسوى مشي لكن وحوي بينتي الشرع ما كل شيء immigration كان وحنا في هاي immigration كان حدو بي هيبان إلا الشيء شرع له هالي كرو أنا كاري جوابي وعد كسر واسكت جرنا يسايو عندنا في ميجريشن كمان كادو يرمتي كدي بدو راعسي وأروح عن كل شارع وعبان سلام عليكم يا الله الحاصل واصل جرنا وحرام ودم ووحي لكن سؤال شيء بحول من فضلك ما كشرع عندنا أما ده شغل والله عين بان قاطع أما وان شقايستي كتب شغل مرة يجي كنا بنروح شوماش ليلا أنا نيجي نسخاق ليلا هجنا ما يمكن الإنجليز جرام ماي كل كاسب حرام داخلية متكلم قاطع هذه هانتا شيخو ما حرام بالعكات هاي مسو وحلال مسو ومباح سيدي كوتا الحمد لله وحواي waxaynu ognahay asalkooda iyo umuurtooda baynu isku daarinaynaa haddaan idin idhaahday hadda masalan beentu ma banaana waxaad ila garateen waxaad tirahdeen waa sax waddankan sharcigiisiina waxaanu ogolayn kulama dhaqmi kartid haddii aan nirina dee waxa weye ma yeelaysaan hadda caawa haddaan idin idhaahdo immigrationka u tagaa qofkii uu wixiisa saxona
ha joogo qofka kalena ha isaga tago ma yeelaysaa ma yeelaysaa hadda saan u leeyahay marka immigrationka weydiiya waa kaas haddii aad ku tegayso laakiin waxaan ogahay in badan inaanay ku tegi hayn magaranaysa oo aanay raacayn marka xaalkiina allaha asture sharcigii islaamkuna ma ogola wax badan oo ayna samaynayno kii dadkaan aynu u nimina ma ogola oo inaga kula dhaqmayna marka waa u bareernay waxa kale dee maaragtay nin iyo nasiibkiisa wuxuu la tago ah wixii lahaydin siiyana idinka ka جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم واحسن الله اليكم waxaan insha allah weli ma inaan dhamaynin wax yaraan isdhegaysanna baarak allahu fiikum waxaa halkan yaalla laba kitaab oo laba buug buug waxa weeyaan cinwaankiisu socdaalkii geerida wuxuu ka sheekeynayaa dadku meelahay soo mareen iyo badaha la soo jiiray iyo maaragtay maxaa la yidhaahdaa saxraha la soo maray qisooyinkooga xalaal iyo xaaraan wixii oo dhan buu ka sheekeynayaa khibrad badan sheekhu uu qoray ilaahay khayra siiyo oo isagu meelo badan uu isagu lugtiisa ku soo maray wax yaraan isdhegaysanaa baarak allahu fiikum wax yaraan isdhegaysana jazaakum allah khayr waa dhamayna insha allah ka labaad waa buug uu sheekhu qoray isagana sheekooyin soomaaliyeed oo dhab ah waa qaybtii koowaad damac rag iyo dan reer ayuu sheekhu cinwaan uga dhigay runtii kartoono badan ayaa maaragtay yimid bay ahayd laakiin jarmalka iyo horan ayay in badan ku soo dhammaadeen in yar baan maaragtay aan ka sidnay oo aan nidhi maaragtay walaalada reer bruxelna insha allah ha ka faa'iidaystaan marka insha allah qofkii kutubta insha allah raba hadduu ilaahay idhaahdo walaalada ayaale iyo idris iyo halkaas ayay joogaan sidoo kale gabdhaha insha allah waa diyaar weeyaan markaa waa la qaadan karaa hadduu ilaahay idhaahdo sheekuna halkan buu joogaa uu saxeexayaa qofkii rabay insha allah waxaan insha allah aan qof walba aan uga mahad celinaa siduu u joogay ee u yimid ducaynu insha allah kusoo khatimi doonaa hadduu ilaahay idhaahdo sidoo kale walaalada facebooka kala socday oo ilaa iyo 200,000 dad kor u dhaafaya sheekha ay la socdaan iyagana waan uga mahad celinaynaa siday u socdeen insha allah waxaan aan ku soo gabagabaynaynaa wax yar kutubta waa loo tegi doonaa ducada horta insha allah sheekh dad baa stress iyo dhib sheeganaya هذه دعاء جودة إن شاء الله ضد مرادة خاص له ولا الله ما ركت تجال كتيرة إن شاء الله ضد كصوميرا إلى دعاء إن شاء الله ندعينا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرنا دنبنا يدنب والدنا ضعفه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واجبر كسرنا وأحسن خلاصنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهي وحن كبرنا دنبنا يدنب والدنا ضعفه. إلهي أمورتنا إنه إصلاحيه. قول كان عمل كان ومن صالح الله كذبه دنبنا الله ضعفه. نارتا الله نجح حجابه. جندي سنة الله نوقره. dadka xanuunsan caafimaad Allah siiyo dadka dhibban oo kurbaysan kurbada Allah ka qaado dadka ubadkaan haysan ubad khayr qaba Allah siiyo ubadka ubadkooda Allah barakeeyo caruurta Allah noo barakeeyo kuwa baariya oo rabbigoodna adeeca Allah ka dhigo ilaahay umurtana ha islaaxiyo qof walba waxa niyadiisa ku jiro khayrka Allah siiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala umurtiisana ha u yasiro ilaahay ku dhintayna naxariis janno Allah siiyo waalidiintana Allah naxariisto inta dhimatay qabrigooda Allah waasixiyo darajadooda Allah baro qaado inta noolna caafimaad iyo camal saalix Allah siiyo dhamaanteen caafimaad Allah nagu irsaaqo ilaahay caafimaad hana siiyo camal saalixana Allah na waafajiyo tawfiiqdana Allah na waafajiyo qulubteena Allah isu keeno dalka muslimiinka iyo dalalka muslimiinta oo dhan iyo dalkeena nabad Allah ka dhigo barwaaqo iyo nabadgelyo Allah nooga dhigo ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayr iyo barwaaqo iyo risq Allah nagu siiyo إلهي سبحانه وتعالى دينتنا الله حفظيه قرآن كان الله نو حفظيه إسلام كان الله نو حفظيه إيمان كان الله نو حفظيه لأن يرد يدرك الله نو حفظيه عروتي ويرك الله حفظيه إلهي سبحانه وتعالى أمورتنا نرم بهاي إصلاحيه ضدك حنوصا إيا ضدك دبان إيا ضدك استراتك إيا والولك إيا والبهار كل الله كقاضو ذكرك إلهي سبحانه وتعالى عرب قوضا الله كسوه أورقوضنا إيمان كان الله كسوه إلهي سبحانه وتعالى قبل أن الهوى سعيه قلوبتنا أن الله نوريه
اللهم آمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سواء وصل قيد غير برسل معناته المحاضرة سواء عمرتين إلهي أجر إلى كسيه إلهي أمورتنا إصلاحيه لما أنت أن خيرك الله نوفق به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شكرا خير الجزاء. إن شاء الله قفكي بوكا ولا نظر ولا لو كذا إن شاء الله مركز مسعد يتشافى إن شاء الله. قولي له كل حجرت. نعم. جواب بحسين مركز كثير اللي يسوي إن شاء الله. إن شاء الله ولا نظر يدرس يا الله جوكا كرادي غير هذا قبلنا السلام ورحمة الله وبركاته. إلى هناك جزاك الله خير.